daawaday halkan waa M252 ku soo dhaw muuqaal kale sida wada ogsoonahay iPhone-nadii dambe shaashada wax batan kuma lahan laakiin waxa jira batan iPhone-ka ku dhex qarsoon oo aad on ka dhigan karto markaad on ka dhigato kadibna aad howlo tiro badan ku qabsan karto tusaale ahaan markaad batanka on ka dhigato waxaad batanka adigoo adeegsanaya ka dheerayn kartaa codka ka gaabin kartaa qaybta control center ka soo daadin kartaa si aad wax uga doorato qaybta notification center ka ayaad soo daadin kartaa application-ada aad isaga bedeli kartaa shaashada ayaad ka xiri kartaa sida markaad batanka geeska taabato u xirmi jiray oo kale howlo tiro badan ayaad ku qaban kartaa dabcan sida caadiga ah batanka on ma ahan oo lama adeegsado isla batanka waxyaabo tiro badan ayaa loo adeegsan karaa tusaale ahaan markaad doonayso inaad screenshot qaado waad on ayaad ka dhigan kartaa kadib waxaad ka dhigi kartaa batankaas inuu screenshot kuu qaado marka aad taabato waxyaabo kale oo badan oo hadda halkan ku xisaabin karinna waa uu qaban karaa ila arag batanka muhiimka ah ee shaashada iPhone-ka ku dhex qarsoon on ka dhigo tijaabi haddii uu ku anfaco waa okay haddii uu ku anfici waayana dib ayaad office ga dhigi kartaa si aad batanka shaashada uga dejiso aan ku bilaabay batankan waxaa loo yaqaanaa assistive touch waxa uu kaa caawimayaa waxyaabo tiro badan oo aad telefoonkaaga markii hore geesaha xagga sare batanada aad ka qabsan jirtay in halkaa batan aad ku qabsato markaad batanka on ka dhiganayso waxaad tagaysaa qaybta settingska hoos ayaad u soconaysaa ilaa aad ka aragto meesha ay ku qoran tahay accessibility markaad doorato haddana xoogaa ayaad soconaysaa ilaa aad ka aragto meesha ay ku qoran tahay touch marka aad taabato qaybta ugu sareysa waxaa ku qoran assistive touch halkaas ofka ah ayaad taabanaysaa kadibna on ayaad ka dhigan kartaa haddeer waxaad shaashadaada ku arki kartaa batan yar oo kusoo biiray batanka marka aad taabato howlo tiro badan ayuu kuu qaban karaa dabcan sidaad xagga sare ka aragto notification center-ka ayuu kuu soo daadinayaa marka aad qaybtan control center-ka taabato qaybta control center-ka ayaa kuu soo baxaya marka aad tusaale ahaan home tagto waxa uu tagayaa screen-ka application-ada dhan intuu hoos dhigo ayuu shaashada qaybta application-ada ku geynayaa sidoo kale haddii aad device tagto waxyaabo badan ayaad samayn kartaa tusaale ahaan shaashada ayaad rogi kartaa lock screen ayaad samayn kartaa inaad shaashada xirto codka ayaad gaabin kartaa waad dheerayn kartaa isla batanka marka aad taabato qaybta device-ka halkan mute-ka marka aad taabato telefoonkaaga silent ayaa saarmaya haddii aad ku celisana silentiga waa uu ka qaadmayaa dabcan haddii aad qaybta device-ka tagto aad moo sii tagtana waxyaabo kale oo badan ayuu qaban karaa sidaad ujeedo waxaa ka mid waxyaabaha uu qaban karo inuu screenshot kuu qaado sidoo kale waxaad batankan u adeegsan kartaa inaad keliya screenshot ku qaadato ama waxyaabo kale aad ku samaysato maxaad samaynaysaa qaybta accessibility-ga touch assistive touch ayaad ku laabanaysaa kadibna halkan ay ku qoran tahay single tab ayaad taabanaysaa meesha uu haddeer ka yahay open menu oo marka aad taabato waxyaabo badan kuu soo baxayay waad ka bedeli kartaa waxaad kaliya ka dhigan kartaa tusaalaha haddeer aan ku siiyey oo kale inaad screenshot ka qaado hoos ayaad u soconaysaa ilaa aad ka aragto meesha screenshot ay ku qoran tahay waadna dooranaysaa haddeer mar walbo aan batankaa taabto bal fiiri maxaa dhacaya screenshot ayaa qaadmaya haddii marka batankan aad ka hesho waxaad samayn kartaa in aad meesha aad doonto dhigto xagga bidix ee sare ayaad dhigan kartaa xagga hoose bidix ayaad dhigan kartaa xagga sare midig xagga dhexe meesha aad doonto batanka waad leexleexin kartaa haddii marka qaybta hoose aad fartaada ama gacantaada ay yar tahay qaybaha hoose inaad dhigato ayaad howlo badan si fudud ugu qabsan kartaa batankaas inta aan ku gacan haatinin waxaan rabaa inaan muuqaalkan uga mahadceliyo shirkadda Haleel Commodities oo ah wakiilka saxda ee shirkadda Samsung ku leedahay Soomaaliya shirkadda Haleel waxaad ka helaysaa dhammaan waxyaabaha ay Samsung soo saarto oo si rasmi ay ayada wakiil uga tahay damaanadna ay ku siinayso xarunteeda ugu weyn waxay ku taalaa isgoyska Taleex ee magaalada Muqdisho ugu dambeyntii gabagabadii muuqaalka sidaad u aragtaa batankan ma tijaabisay haddii aad tijaabisay inaad ka heshay in kale qaybta hoose ee faalooyinka nagula wadaag sidoo kale haddii aadan ka helin iyo wax aadan uga helinna qaybta hoose faalooyinka waad nagula wadaagi kartaa oo aan kaa sugaynaa anigoo kaa mahadcelinaa waqtiga qiimiga badan ku xisay daawashada muuqaalkan inta laga gaarayo maya haddii aadan ka mid ahayn asxaabta M252 nagu soo biir sababtoo ah muuqaalo faa'iido leh sida kan oo kale oo gaagaaban ayaad heli doontaa inta laga gaarayo muuqaalka xibba idankii nabadgelyo